waxaan idinka codsanaa intiin halkan joogta iyo inta Soomaali kale oo ama naga war haysa ama fariinteenu gaartana waxaan ka codsanaynaa sidaas la mid ah inay noogu duceeyaan walaalaheen aan aad u jeclayn inta kadib waxaan idinkaga mahad celinaa runtii isgarab istaaga aad noo muujiseen guud ahaanna aad u muujiseen dalkiina iyo dadkiina sababtan saas u leeyahay waxay tahay
nimanka cadowga ah ee soo abaabulay weerarkii halkan ay ku soo qaadeen waxay u fikirayeen ama ay jeclaan lahaayeen in gudahaan dalka Soomaaliya oo noqdo dal mugdi ah oo madow oo jajabsan oo aad u foolxun waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad tihiin dadkii ugu horreeyay ee yiri suurtagal ma ah sida uu sheegay walaalkay Daawud yani iyo abukaat Maxamed Xasan ba in aanu xalay kaliya meeshan moogin in badan oo idin kamidana waa isku aragnaa halkaan isku aragnaa xalay saaxiibada halkaan fadhiya intiina kale aan imaan aad ii soo wacay in badan oo idin kamida oo jeclaa inaan halkaan isugu nimaado sida aan caaw u wada joogno waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo maamulka iyo milkiilayaasha guryo samo oo runtii dadaal aad u dheeriyo bixiyay dalbaday in sidaan oo kale xal aan isugu nimaado sida xalayba aan sidaan oo kale isugu nimaado laakiin waxaan ka codsaday inaan xoogaa yar caaw ka dhigno waan u mahadcelinaa walaalaheen runtii dadaal waxay gujiyeen aad u dheeri ah sida adunkuma u dadaasheen si gaar ahaan ugu mahadcelinaa walaalaheen waxaan rabaa inaan ammaan iyo bogaadin usoo jeediyo ciidamadii ammaanka waxaan filayaa saraakiishii xalay waxaan igala jooga taliyaha saldhigga degmada Cabdicasiis waa maqayan umaleynaa taliya cali waa maasantay waa kaa xagga fadhiya run ahaantii waxay muujiyeen dadaal aad u ballaaran haddii ay noqon lahaayeen booliiska oo taliyuhu nagala joogo militariga iyo nabad sugidda intaba runtii dadaal aad u ballaaran ayay sameeyeen waxaan hadda inala joogin oo aad ugu mahadcelinayaa taliya Farxaan oo runtii asiga iyo tiimkiisaba ay dadkii igu soo horreeyay oo aan is aragna ayay ahaayeen waa dhalinyaro runtii aad u dadaalaya ay ka muuqato xirfad aad u wanaagsan iyo dhiiranaan iyo geesinimo oo xad dhaaf waxaan si gaara ugu duceynayaa idin halkaana ka amaanaya walaalkeen Muzammil oo ah runtii sargaal aad u wanaagsan oo ku shahiiday isaguna intii lagu guda jiray operationkii oo ka mid ahaa ciidamadii noo soo gurmado halkan loogu yimid aad aan u xasuustaa runtii wuxuu ahaa qofka afraad ciidamadii xilligaas dabaqa shanaad loogu yimiday la socday yani shakhsiga afraad oo ahaa inuu soo gaara saddex qofood oo taliya Farxaan Baroole ku jiro ayaa ka soo horreysay asiga dadka ku shahiido ka mid ahaa waan u duceynaynaa waxaa kaloo aan aniga ku ka ballan qaadayaa inaan asiga iyo askartii kale halkaan shalay difaacaysay daraad oo halkaan ku shahiiday inaan carruurtoodii iyo qoysaskoodii aan la dayici doonin oo aan halkaas looga hari doonin oo inta qabriga la geeyo la dhihi doonin Allah u naxariisto saraakiishii waan ismaqalnay saraakiishii xukuumaysa waa ismaqalnay oo uga mahadceliyey waan uga tacsiyeeyey waxaan hubaa in dowladda Soomaaliyeed doorkeeda ay qaadan doonto laakiin aniga Cabdullaahi aan si shakhsi waxaan ballan qaaday waxbarashada carruurtiisa carruur uu leeyahay reer uu leeyahay waxbarashada carruurtiisa haddii nafti ugu jirtay anaa ballan qaaday sidaas la mid ah saddex askari oo halka ku dhimatay oo kamid ahaayeen askartii hoteelka ilaalinaysay oo runtii dadaal iyaguna dheeriya muujiyey oo sidaa si la mid ah u shahiiday ayagana sidaas si la mid ayaan u ballan qaaday haddii Allah u dali kara noqdo mararka qaar maanta iyo xalay iyo intaan mararka qaar xogaa waxaa ku dhawaaday inaan yara ilmeeyo ilmaha igama keenaynin waa ka xumaa runtii waana ka murugoona wixii dhacay laakiin igama keenaynin yani weerarkii qaawanaa igu soo qaadeen kooxda argixisada laakiin waxaan ku dhawaaday inaan la ilmeeyo sida ay shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan uga go'an tahay inay u dhabar adeegaan yani qof kastoo soo waxa wuxuu lahaa haniyad jabina sida hadda adinkoo yani laba habeen ka hor intaan qaraxu dhicin intaan wadada ma joogin halkan haddana hal habeen aan ka tira badan nahay intii aan ahayn yani qeyro gaar ah ay gelisay shacabka Soomaaliyeed yani siday uga go'an tahay inay u dhabar adeegaan oo dhacdooyinka dhacaya inay waxba niyad jabiyaan
runtii waa ku farxay anoo markii hore aynan ugu jirin wax niyad jaba laakiin tan oo kale way sii dhiirigelinaysaa run ahaantii dalka Soomaaliya wuxuu u afduuban yahay in ka badan 10 sanadood 5 canugoo la soo qalday la jahawareeriyey jidkii laga leexiyay saxda ahaa naftooda haligaya shacabka Soomaaliyeed qalqal qalinayo haligaya sida uu sheegay walaalkay Daawud dadka la qalday iyo inaga iyo dadka halkan ku shahiidaba Allah subhanahu wa ta'ala uma sinin annaga ayaa uga dhow kunyo ku jira dadkaasi waa dadkii shantii caqabood ee adkeed Ilaahay u ballan qaaday innagana waxa Ilaahay noo ballan qaaday inaan nahay shuhado jannadan aan gali doono qofna hadda waqtigiisii oo la gaarin wax ka soo sameeyaan ma naftiisa ma qaadi karaan oo waxba ka qaadi ma karaan أنا وحنا أمسنا هاي ضدك أي سبب نقدين لمن كاس إني دلان إني هين دلان هذا مصيبة وحنساس ولا ومدة كوباد هرت قفكم وقت جيسي أسوأ بعد ومدة لبعض قفكم وشهيد الدين بجيسي دنوب تيسي وحلا عليه وحو كلامه وحاعد كذا دبر كسر ناس مرة كله يصدق دماله سمعت أنت تقول دماله إن دنوب تالي عد كذا الدين بجسار دوش صارت آخرون رقصت محل لها وحنا أمسنا هاي أنت سررت دوشة سجد ماله dadka sidaa oo kale u shahiiday way naga jaanis badayeen naga jaanis fiican yihiin naga nasiib badayeen hal arrin oo xanuun hay leedahay oo qofka uu tilfaajo markuu ku dhaco iyo markii xogaa inta la baaniyo la waxaayo oo muddo laga warqabo marka dambe dadku waa iska samrayaan oo waa qancayaan laakiin waxyaabaha kale oo qof walba waqtigiisa doo dhamaado waa dhimanaya mar kasta laakiin dalka Soomaaliya inuu u afduubnaado shanta canug ee la soo qalday ay nimanka odayada ah ee ayagu gadaasha u fadhiyay soo qaldeen oo maalin la heegay beenta ay u soo akhriyaan sax ma ah waa inaan dhabar adeegnaa أنا halkan fadhida kamid aha wuxuu dhahay qof waa soo waco dhaalkee joogta ugu dhaw waxaan ku ilooday eliidan joogay war maxaa dhacay ma la tagi karaa meesha gabadhii xalka ku dagaysaa joogtaan ilooday gabadhii social media adkaanaysiin marka yani waxay muujinaysaa yani inaad shalay xalay uun ka maqan tahay meel aad daraad xalay ku dagaysa iyo marxaladii aad ku jirtay haddana inaad maanta caawa saas oo kale aad joogto waxay muujinaysaa yani adeeg iyo niyad wanaag iyo ka go'naansho iyo diila aad wanaagsan waxaan rabaa inaan dhalinyarada aan aaminsanahay inay yihiin dhalinyaro la qalday walaalahana dhowr su'aalood weydiiyo oo aan u mariyo media طبعا dhalinyarada saan oo kale markii loo soo diro meel lagu soo qaldo naftooda la haligo waxay ka sameeyaan video iyo documentary ay ka sameeyaan mararka qaar waa daawanaa waa aragnaa waxay leeyihiin ninkani halkan uu ahaa reerkiisa sheegaan hooyadiisa sheegaan waxaan sheegaan adinkan idin weydiina ayagan weydiina weli ma la arkay wiil saan oo kale loo soo qalday naftiisa ku haligay leeyahay amiir hebela dhalay lama arag lamana maqan أميرد إلمو دلاني ما إلمو داون حكي ودرسنا لما كان أميرد دليرد يرسول دري يقول يا كأي تسود ديو والله مقال كذا درجة حسنا تكون صدقه كحيا يعني ظروف تكمل وقت الديف تكمل وقت لما كان أميرد إلمو داون ولا ما أعرف باليوتيوب ده يوالله كده يا دمان دوكيومنتري لقى سمين hooyo iyo aabe iska maskiina oo waliba kuwa dadka ugu danta yar ah ayaa dhammaan carruurta loo soo dirayo sidaan oo kale waxa laga yaabaa videoga inay daawadaan bal dhalinyaradii ayaga ku dhooda ha raadiyeen waxa laga helayaa YouTube-ka laga helayaa hal canug ha keeneen oo la leeyahay amiir hebela dhalay carruurtoodii waxbarashay u darsadeen dalka dibadiisa ku nool yihiin nolol aad u wanaagsan ayay ku nool yihiin dhalinyaradan ay qaldayaan waxay ka shaqaynayaan inay ciqaab ku sugaan yani nolosha ay ku nool yihiin duruufta ay ku jiraan wax ka muuqda adduunka intay joogaan waa sidaas aakhira markay aadaanna waxaa sugaysa ciqaab marka waxay ku qalqaaliyeen ay ka dhadhacsiiyeen ay ku qanciyeen inay ciqaab ku sugaan adduunka intay joogaan waa ciqaabayhiin
آخرنا وحال سويس عقاب تسمع عقاب كدر ونلوش يكون لين رومال يكون جيران دجال يكون جيران باهي ودي منا يعني مركز في رسالة حسلة قوة هو وحيو يعني إذا كذا يعقوك عيا مركو حيو باهي دليل الناس ويديان ورنا كان عروض الأول أنتوا إذا بدنا ذلك تبدي صدقيني مجاعيك اللي بيالك اللي يسميها مجاعيك اللي يكون قرآن ملك اللي جيستان وحضني هو اللي يكلم إلى ورتلمار لما بين نامبر أما مجاعي أمير ذي وحكوا شيء كمان مجاعي إسلام يدو فيك حرفته دنا مجاعي ذي ملك اللي يقولوا لي أنا واحد قبله سيدا كلية لو جهرت بكرة كان 5 مليون صوماليات إن شنتها عنو هبين إلى هي قليبة ونسترس يكوهيان إن أنت قرأ كتوران إن حبذ أنت كتوران صح معه وحنوبها هنا إن لنا ما هذا أركتي أن عرورتان لقلدي حل وهرين وإذا كرت إن نهين وكلية إن حبض حل وغدي أنا وحنا مسنا وحيابها حلقة ونغكر وحكوكا بهالها وحجرة بهالها كنول ملها وسقطة بهالها كنول ملها قرية haddii kuwa wasaqda ku nool meel nadiif la geeyo waa dhimanayaan kuwa ku nool meelaha uraya haddii meel carfaysa la geeyana waa dhimanayaan nimankan waa sidaas oo kale meel aan mugdi iyo wasaq iyo urin kuma noolaa karaan dalka aan wada iftiimino aan wada nadiifino aan wada carfino waa iska dhamaanayaan sababaha ay nagu kalifayaan in mugdi ku jirno kuma noolaa karaan meel iftiin maysa kuma noolaa karaan meel umad nadiif ah joogto kuma noolaa karaan meel dad wax fahmaya oo fikirkooda jaalanji garay kara oo dhalinyarada waxay u sheegaan wax ka duwan u sheegi kara meel ku nool yihiin kuma noolaa karaan marka waxay ka shaqeynayaan inay meel walba mugdi ka dhigaan dadkii dee moogtahay annagu kuma noolaan karno caqligooda iyo fikirkooda oo kale ma lihin waxay ka shaqeynayaan meel kasta inay mugdi ka dhigaan meel kasta ur ka dhigaan wasaq ka dhigaan si aan uga cararno ayaga iyo intii uun ay qalqaasho karaan ay ugu noolaadaan sababaha aan u lahaa inaan fursad siyaabaha lagu xalili karo in la iftiimiya ayay ka mid tahay siyaabaha nuurka in lagu xalili karo waxaa ka mid ah in dhalinyarada fursado shaqo loo abuuro sababaha ay dhalinyarada marka hore ku kasbadaan waxaa ka mid ah dadkii iska duruufeysnaa hooyadii iyo aabihii la daalaa dhacay qutulyoonkii carruurta ku noolaan lahaayeen ayay ka faa'iideysanayaan waxay leeyihiin lacag aan siinayna kale $50 $100 waa kaxaynayaan meelahaas ay geynayaan markaas ay marin habaabintii iyo waxay u akhrinayaan sheekooyinkii beenta ahaa laakiin dhalinyarada waxaan rabaa hadalkayga yaynan u qaadanba dhalinyarada la qalday waxba yay u qaadana serious laakiin su-aashaa kaliya is weydiiyeen nimankan carruurtooda aawen hal anigu amiir dhalay weli ma arkin anigu oo ama garanaysaa leeyahay meel uu isku qarxiyey ama uu ku shahiiday bal had daraasadaas sameeyaan iyagu wiil aad u caqli badan oo dhalinyaro ah hadda ka hor waxaan goobjoog u ahaa nin odayaa soo kaxeeyey wuxuu dhahay meelaan ku gelinaha kaale adiga waxaa la arkay wiilkii meelii uu geli waayo wuxuu dhahay askartan meesha ku qaylaysa isku qarxi wiilkii waxaa la arkay isku dhegan oo ninka oo dhahaya askarta gal iyo geli maayo adigu ila gal kaligay geli maayo ila gal wiilka marka qaladkii la qalday oo serious u qaatay wuxuu leeyahay nin waa ku jecelahay jannada ay raacayna keen warkooda waa la maqlaa caadi u sheekaysanaya wiilka waa ku faraadeegan oo inuu sii day ninka odaga balowgiisa baxaya way sii daa waa ku baraya sii daa kaligaa bax bixi maysid oo raacayna le waa ku jeclahay waa laga kala leexday labadooda la isla qarxay marka nimanka odayada waxay rabaan afartooda xaasuna iska haystaan carruurtooda iska haystaan ciyaalka yararkaan ay usoo diraan ay dhahaan orde ayagoo marka hore ciqaab ku jira haddana ciqaab kale ay usii diraan waxaan qabaa dabcan qolihii ammaankaa noo jooga oo dee qaabilsan xuluusha la xiriirta in amniga wax lagu xaliyo laakiin dhallinyaradeena aqoon-yahanadeenna ah iyo dadka u bareeray dalka inay maalgelin ku sameeyaan waxaa naga saaran mas-uuliyad carruurtaas la qaldayo aragtidan odayada iskale meelo kale ka keeneen waxaa laga yaabaa
inay usoo dhiibeen aragtiyahaas dad aan Soomaaliba ahayn oo dalalkooda ammaan u yihiin oo ilmahooda iyo eheladooda iyo ay nabad ku naaloonayaan. aniga ma qabo aragtidan inay tahay aragti ay Soomaali leedahay, bal waxaan qabaa inay tahay aragti meel kale looga soo minguuriyay ay soo qaadeen iyagu markay ka hadlayaan dadka dawladda iyo waxay dhahaan waa camiileen calooshooda shaqaystayaal ah. camiileenta rasmiga ee calooshooda shaqaystayaasha waa iyaga, waa ninka dilaya dadkiisa dilaya, waa ninka duminaya dalkiisa, ninkaasaa camiila. ninde maxaa la dhahaa dalkiisii ka shaqaynaya inuu iftiimiyo, inuu u shaqeeyo, u adeego ka shaqaynayo ayuu ku tilmaamayaa camiil. camiil hadduu jiro qofkaasaa camiila. aragtidan argagixisanimada la xiriirta aragti Soomaaliyeed ma aha. anigu ma qabo qof Soomaali ah oo ganacsado ah oo damiir leh oo nimankaas dhaqaale siiyo inuu jiro ma qabo. wararkaas suuqa waa ka maqlayay, laakiin inuu jiro ma qabo. balse haddiiba ay dhici karto inuu jiri karo, waxaan aaminsanahay qofkaas iimaankiisa aad ayuu daciif ku yahay. laba arrimood ayuu wuxuu shaki geliyeyba moogtahay. qofkan dabaqaan iskama soo tuurayo, waa dadaalaya, laakiin dee inuu aamino qofkan inuu adduunka ka kaxayn karo, uu aamino in uu si uu isagu naftiisa u badbaadiyo dad shacaba oo masaakiina oo waxba aan galabsan oo muslimiin oo walaalihiisa inuu ka qayb qaato maalin la hegeliyo inuu dilo. waxaan qabaa ma u malaynaya inay jiraan, laakiin haddiiba ay jiraan waxaan kula dardaarmayaa inay mar labaad iyo mar saddexaad iyo dib isugu noqdaan. waxaan qabaa inay fikiraan oo isweydiiyaan yaa daran adigu inaad dhimato, qofkaa gardaran inuu ku dilo adigoo waktigaagii dhammaaday. qofkaan waxba kaama qaadi karo adigoo waktigaagii dhammaaday, laakiin yaa daran inaad dhimato adigoo waktigaagii dhammaaday oo weliba dee shahiida oo dembigaaga cid kale dusha saaratay oo aakhiro janno galay, iyo at the end of the day waa dhimanaysaa inaad dhimato adigoo kumanaan kun oo Soomaaliya oo muslimiina ka qayb qaatay inaad disho oo adiga iyo aada isku dembi tihiin kan dilka geysta. ma u malaynayo qof sax u fikiraya oo caqli yar uu ku ganacsado, iska daaya caqli oo gurigiisii ugu hooydo qof le inuu kari karo oo damiirkiisu siinayo inuu ku dhiirado nimankaas lacag siiyo. haddiiba ay jirto bini aadan aan nahay waa qaldoomi karnaa. waxaan ka codsanayaa walaalahayga Soomaaliyeed inay dib isugu noqdaan. arrintaas arrin saxa ma aha, wax la aqbali kara ma aha. qof in yaroo caqli iyo garasho leh wuxuu ku dhiiri kara ma aha. waa maqlaa warkaas waa iska anu waxaan aaminsanahay inay warsuuqta, waayo yani qof intaas ku dhiiran kara oo adduunyo raadinaya inuu jiro ma qabo. yani ma garanayo anigu waxaan ku tilmaamo haddiiba ay jiraan, laakiin inay jiraan umalay maaha. waxaan ka soo qaadaya inaysan jirin. haddii ay lacal la jirtan sababtan saas idin leeha waxa waaye wuxuunbaa warar ay soo gaagaaray yani kala duwan. meelo ay warar ku qorayeen arkayo ay leeyihiin ninkaas lacagoo diiday kanoo diiday. haddee inay weydiiyaanba ma aha, inaana bixini waa ogyihiin, inaanu lacag bixini waa ogyihiin, inay weydiiyaanba ma ahaba. waxyaabaha shakiga ay gelinayay kamid taha marka waxyaabahaas oo kale oo aan isleeyahay araabay jiri karaan dad sidaas oo kale u fikiray. waa mahadsantiin walaalahay, mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahad celinaa. waxaan idinka codsanaa laba shay ama saddex shay baan idhaah. waxaan idinka codsanaa walaalaheenii halkan ku shahiiday inaad u ducaysaan, sidoo kale aad u ducaysaan inta dhaawaca in Ilaahay bogsiyo. waxaa kaloo idinka codsanaa in sidii hore halkan looga sheegaba aan la niyad jebin, yani oo marna haba yaraatee dad iimaan lahaan nahay qof walba waktigiisa inuu dhimanayo wax kaloo ku dhacaya aynan arag. hadday dhaawac tahay, hadday dhimasho tahay, intuu waa waxay noo qoraan. midda saddexaad oo aan u arko inay aada u muhiim u tahay, dalka mas-uuliyadda naga saaran. qof walba waa noolaa karaa, waa shaqaysan karaa, laakiin inaan ka yeelano aragtiba. anigu waktigii intiisa badan waxaan aada u geli jiray dalkan sidii uu u gaari lahaa, hadday noqon lahayd private sectorka iyo public sectorka, sida uu isku filnaan u gaari lahaa oo aan isugu filnaan lahayn annagu aan cagaheedna isugu taagi lahayn.
magaca Soomaalinimadu macno u yeelaa haddii qofka Soomaaliya ay ka magac dheer tahay al-shabaab oo ay ka magac dheer tahay burcadbadeed oo qofka Soomaaliga uu uu leeyahay qarax xoogaa waa yani macno ma yeelanayno xoolo kastoo leenahay haddaadan xoolaha xurmad ku haysan macno ay ku sameynayaan lama arko oo isaga noolaanaysa waxa loo dadaalayo xoolaha loo raadinayo kan loo raadinayo waxay tahay xurmad lagu lahaado dalka iyo dadkuba dad macno leh ay noqdaan laakiin haddii aad qof ku dhahdo Soomaaliya ka yimid hadduu waxa ugu horeeyo soo xasuustay noqonayso burcadbadeed iyo argagixiso iyo wax lamid ah xoogaa waa xanuun intiisa leeg marka noloshii inay challenge ugu tahay inaan garano على الأقل مركز أنا أقول لي إذا أنا أنكسر إنه دراسة صحة سيد حل وارا لو هلا واحد كان هدي أدوه أسكنوش هاي وذلك دي بدي سكنوش ولا حتى جوجي سوماليا الدين دكتور سوماليا مرة لا مركز سوماليا تهانا وحاواي باكرام يدلك وضد سلا وسما يسمون وحنوبة هم هاي أنا واحد من سنة إن حوك اللي يوبا هنا حلقة أرجع دلكان أرجع حصة كحوق بدن سيد داعش وكلا هذا لقصو عرب الأدونك والعرورتان لقلدي كبعضها وحتى دعس كأن قبل وصدقوا كوك على ظروفتي ديرتك مقدرة يا بيسد وآد كأتر دير شن يتوينك مليون سومالي ذا متقفين كان عصتها مع القبيلنا كان مهورتاقنا كرتين تسكبدا صحنا ما عيني هورتاقنات haddii ay intaan ka badan si hor taagnaadaan waxay tahay waxa question baala aqligeena iyo cilmigeena iyo waxaan ka shaqeynayna waxaan isu sheegayna inaanan ahayn ayaa soo baxaysa waxaan u baahanahay inaan isku noqono ana waxaan aaminsanahay inaan daraasad sax laga sameeyo xalwelinteeda marka laga reebo daraasada reer galbeedka ah oo ay dhici karto inaynan ku saleysnayn waaqicigeena iyo wadcigeena annaga uga xoggaashan reer galbeedka daraasada ay sameeyaan mid ka habboonaan annagaa samayn karna yani xogogaalnimada ay u leeyihiin ka badan annagu leenah waxaan dabcan marar badan waa ku yara fikiray sidaan wada ogsoonahay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ama sanadkan intiisi badneed xoogaa waxaad yara mooday guud ahaan waddanku waa iska yara deganaa garanayo malaha waxay raadinayeen meel dheer ay ku dhaceen malaha kabashay raadinayeen maalmahan waxay sameeyeen inuu dhowr meelo saas oo kale isku day u sameeyaan ay dadka Soomaaliyeed ku niyad jabinayaan inkastoo aan aaminsanahay in waxba aan lagu niyad jabin sida habeen hore waa ka badanahay caawa habeen dambe waa kasii badanaynaa marka ninada halkan fadhiya wuxuu soo ila kaftama wuxuu dhahay waraac nimanka waa ka jabiseen xaalad jidaan marka nimanka waxay jeclaayeen oo meesha mugdiina iska ahaatay madow iska ahaatay marka wuxuu dhahay nimankii wixii sameeyeen dhuma ka jibiseen marka waa ka jibinaynaa laakiin waxaan qabaa inaan daraaso cilmiyeysan oo waxaa laga yaabaa dadka qaarkii in isweydiinayaan fulinteedii waxaan ayaa caqabad ka taagantahay ama cilad ka imaan karta wax cilada iyo wax caqabadoo ka imaanaya lama arko waa la fuli karaa laakiin waxaan u baahannahay inaan farsamadii iyo daraasadii iyo istaadii sax aan ka sameyno xal u helinta arrinkan anigu waxaan shaqo dawladeed bilaabay 2009 bishii February tani maalintan oo noo taagnay nimankan almost waxay ku sii dhawday hadda 12 sano waxaa khayr Allah si dalkan ka difaacay ciidamadeena ammaanka oo wiilasheena ay gabdhaheena isugu jira runtii shaqo aad u qurux badan ayay qabteen laakiin fikirkii weli lama suulin oo dad badan oo magaca nala wadaago oo ehel nala ahaan karo asxaab ay nala ahaan lahaa haddii ayaan xaggaas aadi lahayn ayaa xagga naga jira waxaan u baahannahay inaan meenis ka duwan meeniskaas ama xal ka duwan xal aan xabadda ahayn aan anagu istaadhi garayno wiilasha iyo gabdhaha uniformka xiran way dadaaleen waajibkoodina waa guteen oo waxay noo suurtageliyeen in aan siyaabahan oo kale aan isugu imaan karno halkaan imaan karno waxaan qabaa aniga inaan dadkeena dhalinyaradeena dalkeena wax u baratay ama ku shaqaysatay in aan ka gaabino halkaas
waxaan ula jeedaa wax daraasa oo rasmi oo laga sameeyey lama arko fikir ahaan nimankan odayada ah ee suurtageliyay inay dhalinyaradii dhaqaab ku sujiyaan waa kari karnaa aan aaminsanahay haddaan waqti gelino waa mahadsantihiin waxaan haddii cid ku fikiraysa ay jirto anugu qofka koowaad aan ahay oo ay ka go-an tahay kuna dadaali doona bilaabina doona daraasada ku saabsan xalwelidda arrinkaas cid alaaliya ciddi sidaas lamida qabta waxaan codsanayaa inaan soo wada xiriirna haddii allah wadali karaa noqdo aad iyo aad umahadsantihiin waa idinku dheereeyey mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahad celina salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waayahay umahadsan yahay waana ogaadinaynaa wakiilaha hotelkan xildhibaan cabdullaahi maxamed nuur waxaan rajaynaynaa in gabagabadii aan kusii dhownahay waxaan halma si guud soo lahayn inaan bal faataxa jamaca aan u marno dadkii halkan ku shahiiday iyo kuwii ku dhaawacmay inuu ilaahay u boogadhayo hal mar intaasaan dalban lahayn kadibna waxaan dalban lahayn arrintii la xiriirtay social media inaad adinkuna door nagala qaadataan oo aad tagtaan bogga facebooka ee hotelka halkaana aad ka qaadataan ama ka koobigareystaan hashtagga haddii uu jiro qof hore sawir meeshan ugu galana sawirkiisa ayuu adeegsanaya isagoo hashtagkaas ama hashtagga uu isticmaali doona haddii aysan jirin qof hore ugu galana way furan tahay boorka halkan ugu yaalaa sawir ugu gali karaa intaas inaad adinkuna nagala qayb qaadataan si fariinta halkan laysugu gudbiyey ay u gaarto bulshada Soomaaliyeed maadaama hadda digitalka loo wada guuray mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waan dalbanaynaa ilaahay intii ku shahiida halkan Allah u naxariisto intii ku dhaamatana Allah u boogadhayo idinkuna waan idin mahad celinaynaa doorkiina iyo kaalintii aad ka qaadateen inaad halkan waqtiga kusoo noqotaan waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa maamulka Kuuriyasamo iyaguna runtii muujiyey go-aan geesinimo ah inay munaasabadan iyaguna doorkooda ka qaataan qof kastoo mansabka maqaamku ku fadhiyay isaguna waan uga mahad celinaynaa ilaa uu soo laabtay halkudhigiisana waad ka garan kartaan waa xeebtii jannada marka janno adduunye isagana noo ahaado tii aakhirana kuwa ku kulma Allah naga yeelo munaasabadan noo xiran tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Bacana.